سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما وحن هلكن كسلام يا ومدى الصوماليات ما والبوي كجوغان دعالة الدنيا يديغان ذا الصومالي دكتور سلام كدب ولا ليال واني وأهوري نوح كديه وإن كلا سوهاد ليا مقالة بورما حرون تقوب الكاودال ولا ليال موقال كان أندي صوت تبينيو ayaa waxa uu ku saabsan yahay hooyo iyadu dhashay saddex wiil oo midba midka kale waxaanadiisa caafimaad uu ka liito wiilka ugu horeeyay waa indhoole dhibana ka ah indhaha isla mar ahaantaasina aan waxba arkin wiilka labaad ee aad arkaysaan waxa uu ka xanuunsanayaa xagga dhimirka isla mar ahaantaasina waxa uu ka naafoobay labadiisa lugood iyo labadiisa gacmood halka uu jiifo ayaa saxarada laga qaadaa cuntadana loogu geeyaa hooyada dhashayna waa taasi waayeelka ah isla markaana u xalafsanaysa sidii ay saddexdaas wiil ay wax ugu qaban lahayd wiilka saddexaad ee aad arkaysaan waxa uu ku xidhan yahay qol madow oo mugdi ah silsilad ayaa ku xidhan oo gacmaha in ay goyso aanay waxba uga hadhin wiilkaasi sida ay hooyadii noo sheegtay mararka qaarkood qaylo ayuu qoys raaxada kaga qaadaa waxaana silsilad loogu xidhay in aanu waxyeelo u geysan inamada kale iyo qoysaska kale maadaama birtaasi uu ku xidhan yahay uu dadka ku dhufanayo haddaba walaalayaal hoyga aad arkaysaan waa hoyga ay degan yihiin qoyskani danyartaa balse dhulka ay degan yihiin ayaa lagu amray in ay isaga guuraan isla mar ahaantaasina ay meel kale ay degaan maadaama dadkii dhulkani lahaa ay qoyskani u sheegeen in iyagu ay u baahan yihiin dadka jaarka la ah qoyskani ayaa waxay sheegeen in iyagu ay yihiin kuwa inta badan qoyskani ka warhaya waxna u qabta isla mar ahaantaasina mar walba ku kaalmeeya hadba wixii ay u baahan yihiin qoyskanina waxay sheegeen in arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta ay tahay in ay la noolaan karaan jaarkani wanaagsan ee Ilaahay u soo diray ee ayna doonayn in ay ka fogaadaan waa kuwan dadka jaarka ah oo iyagu ka warramaya nolosha qoyskani wallaahi haddaan duruufaha ku gadaaman kaaga warramo duruufo aad iyo aad u xun baa ku gadaamo waad garanaysaa adiguba hooyo kaliya ayaa maxay daanay u orada hooyo marka baahidii saddex qof oo dhibaataysan dhibta ay ku qabtaa adigu waad garanaysaa marka wallahi dhibaato xoog oo la soo koobi karin bay ku qabtaa laakiin maxay daanay taa waxay ku haysatay dariska oo biyaha u dhaaminay dariska oo maxay daanay wixii maxay daanay caawinay imika duruufta ugu xun ay iyadiina xitaa inay maryaha ka orado siday namada noqoto aan ka baqayna jigadi ka guur markii la yiri ay dhan aliya dhan ay ula ciirsato ma qaadan karto oo waad arkaysi inay mid u silsiladaysan yahay midna una sidaan u tiirsan karin kii u adeegi lahaa uu indhalaaya ya soomaad gar te hooyo dhibta ay qabto waad garanaysiin qof maanta abaan war haduu aabahood maanta nool yahay te oo la qaban lahaa ama wiil ka weyn u jiro wallahi dhib xoog hadana nagu dariskeenahay on maxay daanay waliba aan aqalka ka soo horjeedanahay aan lo maxay daanay leef u ogahay dib xoog inay islaantaas qabto marka ummadda muslimiinta iyo qofka maxay daanay maqalka yaga iyo muuqaalka yaga maqlaya arkayaana dadkaas ha soo caawiyaan gacan ilaahay bana lagu dhagaa gacan aadamada wada intaas inta jaarku u degan yihiin inta daruurigooga biyahooga wuxuuga caafimaadkana alla bixiya marka ummadda islaamka waxa leeyahay meel kasta ay joogaan tagadanay deganaayeen inta jaarka u yabyabay inta jaarka u waxeeyay waxiishiina waxa dadka ilaahay bari inooga guura waxa leenahay meel fog hadii dadka la geeyo waa baaba marka waxaan ummadda meel kasta oo joogto sidii wax loogu qaban lahaa ee jaga anaguna u raadinayn isku kaashanahay in eeriyadan uga dhisi lahayn ayaan ilaahay idinkii dadka islaamka meel kasta oo joogaan ummadda Soomaaliyeed aan leenahay la caawiyo baahidii daruuriyaadkii si walba saddex wiil oo xanuunsanaya oo laba maskaxda ka xanuunsanayaan wiilna isagoo 15 jir oo daayar oo indhabeelay ay hooyo ku haysta halkan waana aagoon aabahoodna muddo hore u dhintay
hooyo ayaa kaligeed gacanta ku haysa oo muddadaas dhan la soo dala dhacaysay hooyadu hooyo xirfad maaha hooyo aqoon oo de wax buuran u soo ridaysa maaha waa hooyo iska baahan suuqeegaas iska soo xarfsataa wixii ilaahay gacanteeda soo galiyay u keentaa annaguna waxaan nahay dadkii jaarka oo annaguna de garab baanu siinaynaa markasta wanaag joognaa laakiin maanta baahida ugu weyn ee timiday waxa weeye shagadii ay deganaayeen ayaa dadkii iska la yidhahdeen waan dhisanaynaa marka inay ka guuraan bay noqotay marka ummadda islaamka maanta waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan qoyskaasi walaalayaal waa tan hooyada qoyskani oo iyaduna inoo waramaysa kana warbixinaysa duruufaha qalafsan ee ku xeeran qoyskeegani saddex inaan u mudin dhalaayi baa qafayay danyarana de waanahay oo inka xaalka arkaya jaarkaygaaba iyaa noqoodiya mid qaar biyaha shubaan qaar cuntaday noo keenaan ilaahay ma hadii jaarka hadaananu haysana waan waqtiilahay midka kale dhibaato waxa jira jagada oo ka guura la yiri oo waxaad u haysan hanan jirin ilaahay mooyaan macmuudka weyn mooyaan dhibaatada weyna haysata aad iyo aad anayna madaxti way igu dhibaatay taabo ma haya awood ma haya ma qaban karo ma xajin kara haday socdaan dhibaato xooga yaa haysata hadaad wixii qabanaysiin walaalahay dibadda dalka haddii wax la iga qaban karayo dhibaatada xooga yaa haysataan ninka indhaha laga reebo dhanka xuska waa li weeyaan mid ku weyn sida aan baalin والعريان حيث هذا العقل لها أو أديس لجين لها أودي أديس نكون جين لها يا نجر حيث تضي باحر وأقول كي وردنا كحسك يا هاي إمكان الساس بالوسع عطوبي نفق العان يد وحول بالساس بالوسع عطوبي آد بحالك وقحين ويل كان كله نهاركم كتير سلسلة كحرة كسلسلة كحرة آد بودي باتيسن يقايلون بلغسيت يو أفر إيا لباطن ويعني هو يبل واحد هل كان وحن كجدبين فيديو يعني عصنيسا إن لو صاع ولا أدرك ولا مسلمين تبحث كعصنيسا إن كوسا قبطان مني إن شغله كودسانو شغله ويبيو قول لو حيو بس أنا عيال كان عارف ما تقول يدري كوجا لسمايه بس ما هو يكعدك مسلمين مسلمين كعصنيسا لا هرتوا ماذا شغله مهمة إلا يردسون هذي وحلا أما شغله ويبيو أما شغله يبيو يدا أقوم هي سواي تطلع حطوا حنوصنا يوم لا كويس تم هيست يا أقل قليل متك كلام ده صدق كلامنا عادي يا ما نبي بعطيسنا وين كان بارك يابا هل كان كجرنو يا هل كان شار كابا نوصو شار كاب لا شار كيا يا بيان كم هاي عيال كأنا و نوصو وحيا شار كابا إلى هاي هم مهد قاعدة شار كابا أنت بنسوق وهاجاك محاد باقو درسا أمضى مسلمين تا دلك دبدا ما يقول بيشوله waxaan baa ku diraya ummadda muslimiin dibad iyo dalba inay na soo caawiyaan oo dhibaatada noo soo gargaaraan iyaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ayaa laga codsanayaa in ay qoyskani ay caawiyaan una soo gargaaraan qofba wixii taagtiisa ahna uu ku soo kaalmeeyay dabcan xilli abaareed ayaa jira balse duruuftu waxayna u kaliftay dhibaatada qoyskani in aanu ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigno walaalayaal wixii faahfaahina waxaad kala xiriireysaan taleefankani shaashada idinka muuqda in la caawiyay oo la isu gargaaray diinteena suuban ayaa ina faraysa waa nuux kadiye magaalada Boorama